Moogtahay inay kuwan yihiin 5 xaqiiqo oo aanad ka ogeyn goronyada. Midka ugu dambeeya ayaa xog kaaga yaabin doona ka hor intaynaan bilaabin. Haylowna lag sarta muuqaalka kana mid noqota asxaabta kanaalka. 5 goronyadu waxay leeyihiin indhaha ugu waaweyn dhammaan xayawaanada dhulka ku nool, waxaana ugu yaabka badan ayaa in ishoodu ay ka weyn tahay maskaxdooda. Tani waxay u sahlaysaa inay ugaadhsatada ka arkaan masaafo ka fog, halka baalasha indhahooduna ay yihiin kuwo cufan isla markaana ka ilaaliya ciidda iyo boodhka. 4 goronyadu ilka ma laha, sidaa darteed waxay liqaan dhagaxaan yaryar oo calooshooda ku jira. Dhagaxaantaas ayaana cuntada u shiida sidii mishiinka oo kale, waxayna mararka qaar calooshoodu qaadi kartaa ku dhowaad 1 kiilo oo dhagaxaan ah. 3 lugaha goronyadu waa hubka ugu weyn ee haysato. Waxay leeyihiin 2 farood oo keliya lug kaste, halka sidoo kale ay leeyihiin ciddi weyn oo aad u fiiqan misana u eeg midi. Hal laag oo goronyadu kugu dhufato waxay dhaawac culus gaadhsiin kartaa xayawaanka ugaadhsanaya. 2 dad badan waxay rumaysan yihiin in goronyadu madaxa ciidda ku aasto markay baqato, balse taas run maahe waa sheeko bereley. Waxay madaxa hoos ugu dhigtaa markay ukumaha rogrogayso amba isku dayaysa inay isqariso. 1 goronyadu waa xayawaanka ugu dheereeya ee ku orda 2 lugood. Waxay gaadhi kartaa xawaare dhan 70 kilomitir saacadiiba. Baalasheedana waxay u isticmaashaa dheelitirnaanteeda si ay si fudud ugu leexato iyadoo xawaare sare ku socota. Haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, midkii ayaa xog kaaga yaabiyey? qaybta commentiga hoose iigu sheeg. Hayloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.